kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantii masaad u dhantihiin waxaan halkan isugu mid doonaa mid ka mid ah madaxdii soo martay taariikh nololeedkii Maxamed Siyaad Barre iyo xilligii uu ku soo biiray ciidanka. Maxamed Siyaad Barre oo yaraantiisii ahaa wiil reer baadiye ah ayaa markii ugu horeysay waxa uu yimid degmada Dhuusamareeb, waxaana uu sii gudbay magaalada Beledweyne, waxaana nasiib wanaag la kulmay askar halka lagu qoray oo uu ka mid noqday dadkii ciidamadii bilowga u ahaa sanadkii 1936 ee galay xerada tababarka ciidanka ee magaalada Beledweyne. Maxamed Siyaad Barre markii tababarkii u dhamaaday waxaa loo soo bedelay magaalada Muqdisho, waxaana la keenay si uu tababaro dheeri ah oo ciidanimo ah uu sii qaato xeradii ciidamada ee ku taalay degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka tagay hawshii ciidanimada sanadkii 1939 kadib markii loo soo sheegay geeridii laba adeeradiis ah oo kala ahaa Jaamac Barre iyo Maxamed Barre, waxaana aaday deegaanka Ulsan ee ka tirsan Galgaduud. Maxamed Siyaad Barre miyiga ayuu degay, waxa uuna ku guursaday xaaskiisii ugu horeysay oo lagu magacaabo jiray Faadumo Aw Muuse sanadkii 1941 magaaladaas markaas oo uu Ingiriisku kala wareegay awoodii dalka Soomaaliya taliskii Talyaaniga oo dagaalkii Anduweynaha labaad looga itaal roonaaday. Maxamed Siyaad Barre isla sanadkaas waxa uu ku biiray ciidamada Ingiriiska, waxa uuna dallacadii u horeysay ahayd alifla helay sanadkii 1941 aliflihii labaad waxa uu qaatay sanadkii 1944 waxaana waxbarasho loogu diray magaalada Nairobi dugsi la yiraahdo Chin School, waxaana tababarkaas kadib uu noqday kormeere koowaad sanadkii 1950 markii Talyaanigu dalka uu ku soo noqday. Maxamed Siyaad Barre oo 3 xidig ah waxa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadkii 1952 16 Oktoobar 1954 ayuu Maxamed Siyaad Barre qaatay xidigtii ugu horeysay, wuxuuna noqday sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Maxamed Siyaad Barre waxa uu laba xidig u dallacay sanadkii 1955 isagoo sanadkii 1957 noqday kabtan ama dhama kadib markii 1958 waxa uu Maxamed Siyaad Barre noqday dhama ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana loo magacaabay xafiiska ciidanka booliiska Soomaaliyeed.